وخالد ابن الوليد ابن المغيرة أبيه وحقوها سيد كأيه قاميها جفيدة كميت كاهيد غريش بني مخزوم كويديس أمنا نسوسا ديسو وحا يهيد أبا سليمان نسب كيسنا وحا ونسب كالنبي كل ميي أووغا لحاد النبي مرة ابن كعب وحنا أولا شيخ خالد صدن سنة كوري جردي النبي يا سحاب تيسا وكو أدن شنبغل بي سقاشن كي ميلادي أبيه وحاوها وليد ابن مغيرة وكمد هارجي وبهنتي لإسلامك وحنا نقولنا نيسي جري وحيد أما كوكلي يستي سببتنا نيستاس لوgu bixiyayna waxay ahayd in xilliyada xajka iyo imaanshaha Makka uu gurigiisa dab ka shidi jiray oo martidu ku soo eerin jirtay guriyaha la jaarka ahna aanu ogolaan jirin in ay dabkaas shidaan sidoo kalena kabcada sanad waxa hagoogteeda u gadi jiray oo saari jiray Quraysh sanadna waliid oo kaliya xilligii uu dhashay Khalid waxa la marsiiyay marinkii waayahaas carabta caadada u ahaa oo ahaa in wiilka dhashay loo geeyo gabadh baadiyaha ku dhaqan oo naas nuujisa si uu uga soo dhigto baadiyaha raganimo iyo adadkaansho iyo sidoo kale inuu si waafi ah uga soo barto afka Carbeed ee fasiixa ah waxana waalidkii loo soo celiyay 5 ilaa 6 sano jir isaga oo ah jir ahaan waxa uu ahaa nin dherer iyo dhumucba isku darsaday markii uu tababarkii ka baxayna waxa uu Ilaahay ugu deeqay awood dagaalyahanimo iyo awood jireed oo ay u dheer tahay garaad badnaan maarayneed iyo mid hogaamineedba waxa uu galay in ka badan 100 dagaal oo aanu weli midna ku jabin mana uu aqoon jabka dhadhankiisu sida uu yahay waxa uu dagaal la galay labadii quwadood ee waayihiisa adduunka ku doobiyay waa Furs iyo Ruum labadabana hoog iyo halaag ayuu dhadhansiiyay way fududahay inaynu nidhaahno weligii dagaal laguma jabin ama dagaaladii uu ku guulaysan jiray balse qiyaas taliye ku dhaqanaa baadiyaha dhulka Soomaaliyeed oo aan dawlad hore u soo arag waxana ka aqoon ee geel jira ahaa oo reemiyi ahaa kadibna mar qura dagaal la galay Mareykanka Ruushka iyo ka yaree buuran Kuuriyada haysta haddana dagaal walba kaga guulaystay Khalid waxa uu la kulmay waayihii soo bixitaanka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxana uu markii hore garabka ku hayay tolkiisa Quraysh ee ku faanayay dagaalkii Uhud ee asxaabta lagu jabiyayna isaga ayaa dejiyay naqshadii jabka ee dagaalkaas nacaybka ay tolkii u hayeen islaamka ayuunbu isaguna u hayay oo xataa waxa la soo wariyaa in markii ay saxaabadu Makka umro ahaanta u soo galeen isaga islaamnimadiisii ka hor uu ka baxay magaalada Makka isaga oo isdiidsiinaya in uu Makkadiisii ku dhex arko muslimiin dhex marmaraysa aakhirkiina waxa uu muslimiin sanadkii 8aad ee hijrada oo ku aadan 6 bilood uun ka hor furashadii Makka islaamnimadiisa sababtii ka dambeysayna waxay ahayd inuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam u diray walaalkii Waliid ibn al-Walid isaga oo u faray fariin uu ugu baaqayo islaamka ragga iska agdhawaayeen qaarkoodna way diideen balse waxa dhanka Makka u ambabaxay isaga iyo Usmaan ibn Dalha al-Abdari jidkana si kidisa waxa ay ugu la kulmeen Amr ibn al-Aas oo isaguna ku sii waajahnaa dhanka Madiina sidaas ayayna ku islaameen markii ay Nabiga u dhaahayeen islaamnimadoodana waxa uu yiri Nabigu markii haliyeeyadeedii ayay ina siisay Khalid markii uu islaamayba waxa soo afyeeshay dagaalkii la magac baxay Ma'uta waxana ay ahaayeen 3,000 oo asxaabi oo kaliya oo 3 nin hogaamintooda kala dhaxlayaan hadii goobtii dagaalka la isugu soo saftayna waxaba ka hor yimi 3,000 ee muslimiinta ahaa 200,000 oo dagaalyahan oo safan sidaas ayayna dagaalkii ku galeen 3 hogaamiyana way shahiideen waxana calankii islaamka gacanta ku dhigay oo gadwaday ciidankii Khalid waxana uu dagaalamay si geesinimo leh dagaal kaliya ayayna gacantiisa ku jajabeen 9 seefood hoog iyo halaagna uu dhadhansiiyay gaaladii markii dagaalkii dhamaaday ee habeennimadkii noqotayna Khalid waxa uu dejiyay qorshe uu isku daba marinayo waaxihii ciidanka oo ku cabsi gelinayo cadawgiisa qayb kamid ah mujaahidiintiina waxa uu faray in ay boodna kiciyaan gurxana sameeyaan sidii inay yihiin guutooyin gurmad ah sidaas ayuuna goobtii ugu gacan sareeyay kadibna dib u gurasho ayuu sameeyay oo baqa carar ayay u maleeyeen sidaas ayuuna muslimiintii ugu aanay cadawgiina kaga adkaaday geesinimadiisaasina waxa ay gaadhay heer uu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam ku naanaysay seeftii Ilaahay ee siibnayd inta wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa foolaadka jihaadka iyo ciidamada muslimiinta Nabiguna hogaamiyayaashiisa soo majeystayaasha ahaa ayuu ka dhigtay xilligii Abu Bakrna waxa uu ka arriminayay dagaalo lala galay kuwa dhimashadii Nabiga dabadeed diinta ka laabtay ama waajibaadkii diiday kuwaasna 10 ayuu dhigay Khalid dagaalada ugu waaweyn ee uu Khalid murtadiintaas kaga hortagayna waxa kamid ah
dagaalkii uu la galay musaylamihii beenaalaha ahaa ee nebinimada sheegtay 40,000 ee tolkii ahna lumiyey ee uu Khaalid iyagana jabiyey gafafka dagaal ee uu galay Khaalid waxaa ka mid ah in markii uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam furtay Maka uu qabiilada u diray ergooyin Khaalid iyo 350 saxaabi oo hogaaminayana uu u diray qabiilka Bani Judayma mana uu amrin Nabigu in uu dagaalamo qoladii ayuuna afku ka yara duulay inkasta oo asxaabtii la socotay ay ka diiday haddana Khaalid uu la dagaalamay oo rag ayuu ka laayay markii uu Nabiga warkii soo gaadhayna gacmaha ayuu taagtay oo waxa uu yiri Ilaahay bari ayaan ka ahay waxa uu Khaalid sameeyay Ali ibn Abi Talib ayuuna Nabigu sallallahu alayhi wasallam u diray qabiilkaas si uu ugu soo qanciyo inuu Nabigu diyaar u leeyahay Khaalid waxa uu hogaamiyay furtay Ciraaq iyo Shaam ee quwadihi adduunka ee waayahaas hooga dhadhansiiyay waxaana uu dejiyay dhowr qorshe iyo kaarto oo ah xeelado dagaal waayihii Abubakarna Cumar waxa uu kula taliyay inuu Khaalid casilo oo uu ka qaado xilka hogaaminta ciidanka ujeedkuna ma uu ahayn in uu xumaan u hayay ee waxa uu ahaa in aanay mujaahidiinta muslimiintu aaminin inay guushu la socoto oo ku dhahan tahay Khaalid haddii ay dhacdo oo maalin uu Khaalid dhinto ama ka dhaawacmo oo laga dhex waayo ciidankana aanay niyad jab uga qaadin oo warag hogaamiyihii guusha ku hagayay in uu allaystay balse Abubakar uu ka diiday qodobkaas markii ay khilaafada Cumar soo gaadhay ayuuna Cumar ka casilay jigadiisaas Khaalid waxa loo soo jeediyay dhalinyaro aan badnayn oo laba jeer oo guursaday marna gabadh ninkeedii markaa ay dileen oo wali aan baroordiiqdii ka bixin marna iyada oo 1200 mujaahidiin ah ay dhinteen oo guursaday labadaba khaliif Abubakar aad ayuu canaantay oo maagay sidoo kale mar uu qabtay gaalo dagaal la gashay uu laayay ilaa webi ka agdhawaa uu dhiig dareeray qodobkaasna taariikhyahanada qaarkood ayaa dhaliilay inkastoo taariikhyahanada qaarkood kale ay ku taageereen iyaga oo aaneynaya in uu ahaa dagaal nafsi ah oo uu ku dareen gelinayo gaalada isu kaashatay daminta nuurka ilaahiga ee islaamka Khaalid waxa uu dhalay 3 wiil oo kala ahaa Suleymaan ibn Khaalid oo ku dhintay dagaaladii furashadii Masar Muhaajir ibn Khaalid oo ku dhintay dagaalkii Safiin isaga oo la safnaa Ali ibn Abi Talib iyo Cabdiraxmaan ibn Khaalid oo noqday barsaabkii magaalada Himis ee Suuriya waayihii Cismaan kana qayb qaatay dagaalkii Safiin oo la jiray Muawiya ibn Abi Sufyaan sidoo kalena kamid ahaa ciidankii ay muuminiintu u direen furashada Qustandiniya intii u dhaxaysay 674 ilaa 678 miilaadiga inta oo kaliya kuma ekeyn ee waxay tabinaha qaarkood xusayaan inay tafiirtiisu gaadhay 40 nin dhammaantoodna ay ku noolaayeen Shaam balse kulligood uu mariyay oo dabar jaray daacuunkii Amwaas ee muslimiinta wiiqay 18 Ramadaan sanadkii 22 Hijriga oo ku aadan 642 miilaadiga ayuu Khaalid qabtay sakaraadkii dhimashadu kadibna wuu ooyay isaga oo ka xun in uu farash ku dul dhinto oo aan ku dhiman goob dagaal iyo gacan cadaawe dhiigiisa iyo dharkiisa isagoo sitana aan lagu aasayn sidaas ayuuna ku allaystay Ilaahay ka raali noqdo waxana lagu aasay magaalada Hims ee Suuriya dhammaan guulahaas iyo kaalmahaas aynu ka soo faaloonayna waxa uu gaaray oo taariikhdaas waartay uu reebay 50 sanadood gudahood intii aanu dhiman erayadii uu lahaana waxa ka mid ahaa waxaan soo arkay 100 dagaal oo gurxankooda iyo riigaankooda wata jirkaygana kuma taalo taako dhameystiran oo aanay ama falgaari igaga dhicin ama waran iga jeexin ama seef iga dhaawicin imikana waanigaas furaashkeedii ku dul dhimanaya waxa soo yaalka Khaalid laga qoray buugaag dhowr ah oo channelka Pakistaaniga ah ee Aaqa Ibrahim Akram waxa uu ka qoray buug ugu wanqalay Sayfullah al-Masluul Khaalid ibn al-Walid حياته وحملاته عباس محمود العقاد isaguna waxa uu ka qoray kitaab uu bixiyay Abqariyatu Khaalid dhowr buug oo kalena waa laga qoray taxanayaal iyo filimano waa laga metelay sooyaalkiisa waxa soo laabtay isweydiin ah muxuu Khaalid isaga oo qaaday in ka badan 100 dagaal oo culculus ayna ka dhabahayd shahaado dalabka iyo in uu Ilaahay dartii u shahiida haddana ugu dhintay furaashkiisa ee tamanigiisaas iyo yididiiridiisaas uu xaqiiqoobi weyday inkastoo qof walba qadarkiisu uu qoran yahay oo noloshiisu halka ay ku dambeynaysaa yahay firaashka dushiisa haddana waxa weydiintan ka warceliyay Sheekh Hindiya oo la yiraahdo Maxamed Yaaqoob Annaano Towi waxana uu yiri murtida ka dambeysay inuu Khaalid ku dhinto firaashkiisa oo aanu shahiidin waxa ay tahay nabiga ayaa ku maamusay naanays asafti Ilaahay ee galka ka siibnayd
haddii ay gaaladu goob dagaal ku diri lahaayeen Khalid oo dhimasho ku hubsan lahaayeen waxa ay ku faani lahaayeen inay jabiyeen seeftii Ilaahay ee galka ka siibneyd ee uu iyaga ku saliday si aanay sula weynaan oo wara gaaladu in ay Ilaahay ka taad ka badnaadeen qorshihiisii kana adkaadeen seeftiisiina waxa uu dooray Ilaahay Khalid inuu isagu afsado oo aanu gacan aadami ku bixin isaga oo haddana jirkiisu wada dhaawac ahaa ma soo koobi karno taariikhda Khalid oo aad ayay u ballaaran tahay balse inahaas kooban ayaynu kaga kaaftoomaynaa oraha dhaxalgalka ee laga hayo Khalid ibn Waliidna waxaa ka mid ah ciidanka weynaantiisu waa guushiisa yaraantiisuna waa jabkiisa garaadka raggu waxa uu ku jiraa caarada qalinkooda ee kuma jiro caarada warmahooda Ilaahay waxa uu gacmaha kuugu sameeyay inay shaqeeyaan ee ku mashquuli wanaag intii ay xumaan iyo macsi iyagu kugu mashquulin lahaayeen sidoo kale mar inta uu kitaabka Quraanka soo qabtay ayuu yiri jihaadka ayaa naga